Asri Studio. سعيد عبد بيكي أيانا inoogu amarti oo runtii fankiisu daafaha caalamka iyo Soomaalida oo dhan iyo meel walba uu qabsaday mudooyinkii ugu dambeeyayna fanaaniinta aadka loo ixtiraamo ee loo jecel yahay kamida BKO dhinac kasta waad ka waashay dadkii oo si kasta waad u waashay imikana waabad ugu dareydo horta niyada ha la isku kaaweedeeyo baa tiri qof weyn ani iimatihi heestaasi qasad dhaban filaya sagalay aad baad u mahadsantahay ma sha Allah Allah ku casmo heesta waxay diibay Xasan Dhuxul qisadeedu waa qisaan ajiiba ma sha Allah abaan ka sheekay habeenkan qaaday qof weyn ani iimatihi horta sagalay saad u ogtahay mooyo jacaylku ma gaboobo waliba waxaan aaminsanay afartanka marka kor loo dhaafo inuu markaaba soo dago jacaylku inuu sii dago inuu sii dhaafo 70 80 naftu helbay baahantay marka waxaad leedahay intaasoo ka waa isha kalgacale mar haddii la isku dul gaboobo oo weysada ii soo dhiib iyo tukubada ii qaba iyo suuligayga iyo garbaj markaasaaba xubbiga dhabtii u bilaabmaa maasha Allah jacaylka gabigiisu waa wehel marba markuu waana wax wanaagsan jacaylku ilaahay baana bixiya oo deeq waxaan markasta aan ku keenay qofkii markii inantii ay kula soo jabto waqti badan waaye badan kula soo curta ama qurbaha joogta ama dalaha joogti way noloshii kula soo koriso markay yar weynaato hada laato hadana meel kale u boodo ma fiicna waa inaad qaadaa qof weyn ani iimatihi niyada u kaawdaysaa oo waxay ku qosasho u geysaa oo waxaan ku jacaylka qalbiga laga koriyaayo waa sidaa darteed baan heesta ku keenay qof weyn ani iimatihi jacaylku wax gabooba ma hasagle axyaa hees inta waayeelka ee cishqiga guryaha la joogta ee la jiifta ee la taagan muusiga iyo heesihii jacaylka ahaa ayaynu hadba dhinac ka soo gelaynaa mar gacantaadii iyo kamankii ayaad noogu raaxaynaysaa BKO maasha Allah ilaahay ku barakeeyan leena gacanta codka labadaba bal aniga igan ka hor fadhiya laftirkaygu haddaan ku idhaahdo bal afar eray oo laxankii iyo erayadii iyo kamankii iyo garaacistii iyo wada wata bal wax dheh xal oran lahayd Allah ya isagala oo imika samee afarta kelmadood iyo waxba samaa ilaahow igu asr adduunka dumar baa ugu qaalisan aad baad u mahadsantahay waxaad ku jirtaa wariyaasha qaaliga ah Afrika aad baad u mahadsantahay sagal Mustafa Xasan Nuur laakiin waan qiyaasaya sagalay waa deeqan leh rabaa darajada ku siiyey dulqaad iyo dadnimo kugu dul furay sagalay waa deeqan leh rabaa darajada ku siiyey dulqaad iyo dadnimo kugu dul furay habaysi wadinba ilaa waan suuxi haddii kale barnaamijka sii wadi maaye aad baad mahadsantahay xayawaanada dunida korkeeda ilaahay ku oomay BKO haddaan ku idhaahdo xayawaankee ku cabsi geliya muxuu noqonaya oo aad uga baqato deniyo reer magaalka oo dhan bahala way ka baqaan kawdi laakiin markay sidaa noqoto bahalka aan arkayn baa ugu khatarsan sida maska ama gurida halaqa birayda ilaahay inaga xijaabo waxaa tiri haddun baan jaanta saaray jidkii caashaqu lahaaye jacaylka balaan qaleeyo soon la qaleeyo baynu arki jirnay BKO jacaylkan la qaleynayo aad baad u mahadsantahay heesta waxay ii dhiibay Xasan Daahir Ismaaciil Warsame abwaantii qaaliga ahaa buu ku jiraa Warsame waan salaamayaa sidii marwadiisa ma sha Allah jacaylka balaan qaleeyo sagalay noloshu waa jacayl iyo inta kale boqolkiiba boqol noloshu waa jacayl adiga ma kugu dhacay lafahaantaada BK ahaan walaal qofaan jacayl ku dhicin qof jiraba ma aad iyo